السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا أحبابي الكرام، يا أصدقائي. هذه باني سلامي دمانتين مالك صداقة حدوني دا أدكو جوبتين وقتيدا كلا جدوان يا أدكو كلا سجنتين. حنكو جرنا معلمه عدعادة معلمه وهو ناكسنا دوكا ugu fiicnaa ayaan ku jirnaa waqtiga ay ugu wanaagsan tahay Yurub ama ugu fiican tahay weeyaan marka ay cadceedu jirto inkastoo ay wadato dibteeda iyo hawsheeda iyo walaaceega iyo walbahaarkeega ay wadato haddana waa waqtiga ay ugu fiican tahay. aan ognahay in ay cadceedu ay aad ugu yar tahay Yurubta ama wadannada reer galbeedka la yiraahdo. inta ugu badan ama dhammaantood cadceedu aad bay ugu kooban tahay, way yar tahay. sababta cadceedu ay u yar tahay iyo qabowga iyo barafku uu ugu badan yahay waa arrin rabbaani ah. waa run waad la aaminsan tahay inay tahay arrin rabbaaniya. waxaan ku leeyahay waa arrin rabbaaniya, arrin ilaahiya weeyaan uu ilaahay iska wato. sababta ay u noqotay wadannada islaamka oo dhan inta ugu badan ama badankood 90% ay u yihiin dhul diiran iyo dhul kulul. waliba kuleelku wadana qaar way kulul yihiin, laakiin inta badan jawgooga ama cimiladoodu waa cimilo isku dhammaystiran oo isla eg. qabowna maahin badan, kuleel badanna maahin. laakiin sababta ay u noqotay halkan ama wadannada aan islaamka ahayn oo u noqday inuu ahaado ama ay kululaadaan inay ahaadaan wadanno aad u qabow oo baraf leh ay cadceedu ay ku yaraato. ma isweydiisay sababtu waxay tahay? ma isweydiisay carab sida dadka qaar baad aaminsan tahay inay tahay inuu ilaahay u nimceeyey oo nimco tahay? miyaad aaminsan tahay? taa ma aaminsan tahay? haddaad aaminsan tahay waa halkeyga, laakiin waxaa kuu sheegayaa in ay tahay arrin rabbaaniya, arrin u baahan in la fiiriyo. maxaa yeelay cadceed marka uu dhulku yahay iyo marka uu dhulku uu qabow yahay uu kala duwan yahay. sababta dhulkan aan wadannada islaamka aan ahayn qabow badan, cir badan, baraf badan loo duldhigay waa arrin xaqiiqatan aniga markii aan u fiirsaday wallaahi aan aad uga yaabay. waxaan u arkay sababtoo ah iminka matalan maanta iyo shalay iyo daraad dhulku cadceed weeyaan. cadceeddu markay saa u soo baxdo waxaa bataa dhulkan fusuqa iyo fasaadka ayaa bataa. aad iyo aad baa loo fasaahda oo loo fasaadiyaa. maxaa yeelay dadkan dad diin iyo millad wax haysta maaha. waa dad u dhaqma naftoodu sida ay rabto. naftoodu qof kasti oo dadka dhulkana ama wadannada reer galbeedka ah diintii halkaabay iska dhigeen. waxay yidhaahdeen qofka sida sa'al iyo si isag uu rabo ee naftiisu ay ku hoggaamiso ha sameeyo. markaa saa darteed inta cadceeddan uga socdaa maalmaha ay cadceeddu soo baxdo waxaad arki meel u bixi kari maysid ilaa waa fusuq. fusuqii guryaha ay ku haysteen dhowrka maxaa la yidhahdaa bilood ay dhulku uu qabowga ahaa ama cirku uu da'ayay ama barafku uu jiray
ay ku jireen dibadda ula soo baxaan dibadda baa la soo wada fadhiisanayaa dadka khamrigii odaygii islaantii inantii inankii waa la iswada qaawinaya sababta la isu qaawinayna ma garanaysa cadceedana malaha waxbay ka laynaysaa oo ka dilaysaa siday doontaba ha ahaato marka inay cadceedda ilaahay uu ku yareeyo oo ay ku koobnaato oo dhulku cadceeddu ay yaraato marka waxa ay ku tusaysaa in ay tahay arrin ilaahay iska wato oo rabbaaniya arrin ilaahay iska wato oo rabbaaniya wadannada islaamka maadaama ay islaam yihiin maadaama oo aan la ogolayn qofku sida uu doono una u socon karin u samayn karin balse uu ku dhaqmo awaamirta ilaahay uu bixinayo ee ah waxaasi waa xaaraan waxaasina waa xalaal sidaa u soco sidaa uma socon kartid waxaa waa samayn kartaa waxaa ma samayn kartid maadaama uu asturaadu diinta ay ka mid tahay marka qofkii kuma dhici karayo qofkii waxa uu isagu samaynayo fadli ilaahay laakiin dad ma fasaadin karo waxa uu samaynayo isagii ilaahay hoos buu wixiisa iskaga samaysanaya hoos buu u qarsanaya laakiin in uu shaarica ula soo baxo hadday waddanno qaar jirtana way kooban tahay hadday jirtana way kooban tahay laakiin tii qofkii dee siduu isagu uu doono u samaysanaya isaga ku kooban waa gaar ma garanaysaa dukaankan galaya arka basad ma garatay marka ilaahay kuuma samadiido marka sidaa buu u jiraa kulaylku u jiraa